wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Jubbaland ayaa munaasabad ballaaran oo lagu weyneynayo maalinta caruurta ee Afrika oo ku beegan bishan June ku qabatay magaalada Kismaayo. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Jubbaland Cadar Cabdullaahi Ismaaciil Juraati, wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Dr. Axmed Maxamed Axmed Sadiq, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Mukhtaar Kamaal, agaasimaha wasaaradda haweenka Idriis Xasan Maxamuud, agaasimaha wasaaradda cadaaladda Cabdiwaaxid Maxamed Dhaqane, gudoomiyaha haweenka gobolka Jubbada Hoose Faadumo Aadan Kateela, iyo caruur ka kala socda xaafadaha magaalada Kismaayo iyo marti sharaf kale. halku-dhiga xuska maalinta caruurta ayaa ahaa sanadkani ciribtirka caadooyinka khatarta leh ee caruurta saameeya. qaar ka mid ah caruurtii ka soo qayb gashay munaasabada ayaa madasha ka hadashay. anigoo u hadlaya caruurta Jubbaland waxaa loo geystaa dhibaatooyin badan haddaynu hayna caruurta Jubbaland. sidoo kale dhibaatooyinka waxay ka yimaadaan qoysaska sidoo kala duwan, sida markuu aabbaho dhinto oo kale caruurta waxay la kulantaa dhibaatooyin badan. sidoo kale waalidiinta markay kala tagaan oo kale dhibaatooyin bay kala kulmaan. waxaa kaloo dhibaatooyinka badana ay caruurta kala kulmaan deegaankooda ama bulshada ku nool yihiin faquuqitaanka oo kale, gabadha oo la faquuqo oo waxbarashada loo jiido oo kale way keentaa. sidoo kale maxay ahayd caruurta la askareeyo faquuqitaan bay tahay, cunugiyo macnaha cunug kale u duufsado. haddii aan usoo laabto maanta waa maalinta African Child Day, waa maalinta caruurta Afrikaanta. waxaana la bilaabay waxaana la qabtaa sanad kasta bisha 6aad 16deeda 16deeda la qabtaa. inkastoo shalay ay ku beegneed maanta la qabanayo, laakiin shalay inkastoo ay ahayd maalin jimco ah. waan ogtiin anaga muslimiin haddaan nahay macnaha maanta jimcaha waxay noo tahay ciida isbuuca, markaa sidaa daraaddeed way noo qabsan weysay. haddii aan usoo laabto caruurta, horta waa maxay caruur waxaa la lahaa hay-adaha UN-ka waxay sheegeen in qof kasta oo ka yar 18 sano inuu yahay caruur. marka waxyaabo waxaa jira fara badan oo caruurta ay u baahan yihiin child rights-ka. caruurta waxay u baahan yihiin in ay helaan aqoon si bilaash ah oo tayo leh. waxay xaq u leeyihiin inay noolaadaan sida dad kale ay u nool yihiin camal. waxay xaq u leeyihiin in ay ka qayb qaataan wax kasta ay jecel yihiin, in ay helaan horumar, sidoo kale in ay helaan caafimaad, in laga ilaaliyo faquuqaha, sida in gabdhaha xaafadda lagu ilaaliyo, wiilashana iskuulley wax loo diro, in ay xor u yihiin in ay fikirkooda dhiiban karaan. wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Jubbaland Axmed Maxamed Axmed ayaa madasha ka hadlay. Afrika caruurteeda horta dhibaato badan baa jirta. wasaaradda caafimaadka waxay ugu talagashay section oo ka shaqeeya jira wasaaradda caafimaadka oo ah haweenka ka shaqeeya caruurta. haddii aan soo qaato misaal, cudurka ay u dhintaan caruurtu Afrika oo dhan, adduunka oo dhan 50% waa Afrika ka dhintaan. waxay u dhintaan 3 cudur iyo 2 kale, waa 5 cudur bay u dhintaan. waxa ugu horeeya waxaa weeye cudurka la yidhaha shubanka, waa dilaa, caruurta wuu dilaa. waxaa dila waxa la yidhaaho malaria, way dishaa. iyo waxa la yidhaaho pneumonia, neefta ku dhigta. pneumonia waxaa weeye sababka meesha ugu hooseysa ayuu qabanayaa, markiiba qofku waa kaa dhiman, imaa waa dhimanayaan baa. waxaa la yidhaha pneumonia la yidhaha. waxaa soo raaca qaaxada, TB-da iyo HIV-ga. intaasaa ugu daran caruurta u dhimato. intaba wasaaraddu weelay tacaashaa. nafaqadarrada waxaasoo dhan waa isku xiriin. marka wasaaradda caafimaadka Jubbaland aad bay u dadaashay.
meel kasta waxaan ka furay MCH iyo OPD bukaan socda eegto inta waa laga furay tuulo aan laga furin ma jirto. wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Jubbaland Mukhtaar Kamaal ayaa sheegay in mas'uuliyad ka saaran tahay dhammaan carruurta Soomaaliyeed. wasaarad ahaan haddaan nahay wasaaradda waxbarashada waxaa naga saaran carruurta mas'uuliyad weyn. carruurta markaa ka hadlayna wasaaradda qaybo badan bay u kala dhahdaa carruurta waa kuwa oo lixda lixaad qaba iyo kuwa cuuryaamo ah, kuwa dhagaal baan haynaa, kuwa indhoola aan haynaa waxbarna, kuwa aan luga iyo gacmo lahayn baan haynaa oo ayaga laftooda waxbarashada qaabka ay wax ku baran lahaayeen aan ka taxadarnay. marka insha Allah haddii ilaahay yiraahdo maanta munaasabadan oo maalin weyn annagana aad ay loogu weynta haddaan nahay ka wasaarad ahaan maadaama aan waxa aan la tacaamulnaba ay ugu badan yihiin carruur. wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Jubbaland Cadar Cabdullaahi Ismaaciil Juraad ayaa ugu dambeyn soo xirtay munaasabada. wasaaradda ahaan waa maalin nagu weyn maxaa yeelay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka waxay seen bari u taagan tahay sida loo heli lahaa carruur caafimaad qabta jir ahaan iyo maskaxiyanba intaba. waxaan leeyahay carruurta Afrika aan annaga ka mid nahay dowladaha Afrikaanka ah ee 52 dowladood ah annagana maanta doorkeena inaan qaadanayna oo wasaaradda haweenkana ay u xisaaran tahay. carruurta khaasatan carruurta Soomaaliyeed dhowr iyo 30 sano ku soo jirtay dhibaatada iyo qaxa iyo barakacayaasha ah soo daalacdhacayay haddana ka Soomaali ahaan dadka annagoo kale oo dhibaatada ku dhacday dowladaha ugu fiican ayaan ahayn maxaa yeelay hooyooyin sharaf leh oo ilmahooda u naxa oo maaragtay u baqa oo ceshada oo daryeela ayay haweenka Soomaaliyeed yihiin.